waxa uu yiri qoraaga weyn Brian Tracy, haddii aad lumisid daqiiqad waxaad lumisay saacad, haddii aad lumisid saacadna waxaad lumisay maalin, haddii aad maalin lumisid waxaad lumisay noloshaada oo dhan. تبسم تبسم وخلي الهموم وخلي الغموم السلام عليكم. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. ku soo dhawow nolol qurux badan. magacaygu waa Yuusuf Sakeen. waqtigeenu waa nolosheena. qofkeenu muxuu yahay ka ahayn waqti isku tagay oo isku aruuray shalay, maanta iyo beri. Soomaan hadaba sideen waqtigeega uga faa'iideysan karnaa sida ugu wanaagsan? waxbarashadeed ku jirtaa, arday ayaa tahay, imtixaanka ayaa kuu soo dhawaaday, waxaad doonaysaa sidii aad waqtigaaga uga faa'iideysan lahayd sida ugu wanaagsan. waxaad doonaysaa inaad waqtigaaga ka adkaatid oo aad xakamaysid, waayo waxaad og tahay haddii aad waqtigaaga xakamaysid inaad xakamaysay noloshaada. markaad noloshaada xakamaysidna waxaad damaano qaaday guushaada. soo sidaas ma ahan? haddaba ii ogolow inaan kula wadaago tallaabooyin cajiib ah oo aan ku kalsoonahay 100% haddii aad nafsadaada ku dabaqdid inaad damaano qaadaysid guushaada, inaad damaano qaadaysid inaad waxbarashadaada ka gaartid meesha ugu sareysa. maxay yihiin tallaabooyinkan? tallaabooyinkan waa 6 tallaabo. tallaabada koowaad, ogow hadafkaaga. muxuu yahay hadafkaaga? maxaad wax u baranaysaa? qofkan haddii uusan ogeyn marka horeba hadafkiisa u xadidnayn, waqtigeena soo ilaalinayna ma ilaalinayno. soo ma ahan? waayo aniga marka horeba ma ogi hadafkayga. maxaan wax u baranayaa? maxaan u noolahay? muxuu yahay hadafkayga nolosha? soo ma ahan? qofka markuu ogyahay hadafkiisa uu ka fikirayaa ilbiriqsi kasta, daqiiqad kasta meesha ay ku baxayso. waayo hadaf ayaan leeyahay, qorshe ayaan leeyahay, plan iyo khitad ayaa ii degsan. meeshaan u socdo waan ogahay, saa darteeda sidii aan meeshaas ku gaari lahaa daqiiqad kasta waan ilaalinayaa, ilbiriqsi kasta waan ilaalinayaa, waan la soconayaa. hadaf yeelo. markaad hadafkaaga ogaatid waqtigaaga adig ayaaba si automatic ah u ilaalin doona oona uga fikiri doona. tallaabada labaad, ogow meesha uu ku lumo waqtigaaga. aad ay muhiim u tahay inaad ogaatid marka hore oo aad xadidid meesha aad waqtigaaga inta badan ku qaadatid. maxaad ku bixisaa waqtigaaga inta badan? wax daawasho badan, filmaan badan, wada sheekaysi aan wax micno lahayn, social media aad isaga jirtid faa'iido la'aan. xageed gelisaa waqtigaaga inta badan? markaad ogaatid marka hore meesha aad waqtigaaga ku lumisid, way kuu fududaanaysaa inaad si fudud u ogaatid meesha u baahan inaad waqtigaaga gelisid. meel waxaa jirta waqtigaaga kaaga baahan, meel u baahan inaad waqtigaaga inta badan aad ku qaadatid. wax akhriska, daraasada, iskuulka, jaamacadda, waxyaabahan oo dhan waqtigaaga u baahan yihiin. soo ma? haddaba waxaad gelinaysaa waqtigaaga meel aanan loogu talagelin. arrimahan oo dhan ayaa ku kala cadaanaya marka aad marka hore ogaatid meesha aad ku bixisid waqtigaaga, meesha uu kaaga lumo. waxaadna iska yareynaysaa waxyaabahan waqtigaaga kaa dila, waxyaabaha waqtigaaga kaa lumiya. haddaba ogow marka hore meesha aad ku lumisid waqtigaaga. tallaabada saddexaad, u qorshayso beri. aad ay muhiim u tahay inaad u qorshaysatid maalintaada. say u qorshaysanaysaa? habeenkii ka hor intaadan seexanin soo qaado warqad iyo qalin, kadibna waxaad ku qorataa wax walba oo kuu muhiim ah, waxyaabahaas ood u baahan tahay inaad beri samaysid. midaan aad iyo aad ayay muhiim u tahay, khaasatan haddii aad tahay arday. waxay kugu caawinaysaa bedelkii aad waqtigaaga ku lumin lahayd meelo aan loo baahnayn. marka horeba adiga way ku xadidan yihiin waxyaabihii aad doonaysay inaad samaysid. iskuulka inaan aado, saacadaas inaan wax akhriyo, inaan meeshaasi aado. wax walba hadhow kuuma noqonayso nolosha mid iska furan, mid wax kelisa kugu soo dhacayaan ma noqonayso, sababtoo wax walba waxaad xadiday. ugu yaraan waxyaabo u muhiimsanaa waxaad xadiday xalay ka hor intaadan seexanin. haddaba maalintaada si horumarin ah ugu qorshayso.
qoro wax walba oo ku sugaya, wax walba ood u baahan tahay berito inaad qabatid caawa intaadan seexanin. warqad ku qoro, beritana kuwaas samee. wixii oo si kaysa kugu soo dhaca oo muhiim ana dhib ma laha markaasi. waad ogtahay laakiin wax walba oo doonaysid inaad sameysid, haddii wax soo baxaan waxyaabahaasi oo ayna tahay daruuri inaad sameysid, dhib ma lahan. dib ayaan u dhiganayaa sheegii kale aan doonay inaan sameeyo, dib ayaan u dhiganayaa, kadibna xaaladan markaasi daruuriga ah ayaan soo qabanaya. laakiin adiga waad ka duwan tahay, waadna ka fiican tahay 100% qofka noloshiisu ay tahay ha iska socoto. somaa haddaba u qorshayso berito caawa. tallaabada 4aad, noqo keligaaga. maxay tiri? noqo keligaaga. marmar waxaynu u baahannahay si aynu u gaarno ahdaafteena, si aynu uga dhawayno riyooyinkeena, inaynu noqono keligeena. waan xasuustaa waagaan dhiganayay jaamacadda, saaxiibadeeda intooda badan waxay ahaayeen kuwo caawo dhan isla wada fadhiyo, lasku yimaado, kadibna shaah la wada cabo, galabta si loo fadhiisto ilaa iyo caawa. waxaa lagu dhammaynayaa waqtiga wax aan wax faa'iido lahayn. waqtiga ayaynu meesha ku dilaynaa. shaah la wada cabaya, fadhi ku dirir maanta oo dhan sheeko aan waxba nagu soo kordhinaynin. kadib markii aan arkay wada sheekaysigan in arrintan aysan igeynaynin hadafkii aan uga imid dalkayga, hadafkii aan u soo baxay, waxaan go'aan ku gaaray inaan bedelo noloshayda. kadibna waqtiga marka la gaaro aan wax akhrinaya, waxaan hoosta ka soo xiranaya albaabkayga. kadib dadkii waxay ku sheekaysteen, ayuub ha u tegina, waayo haddaad u tagtiin albaabka idinkama furayo. kadib markii aan arkay saaxiibadeedu inaysan la sheekaysigooda iyo waqtiga aynu meesha ku dilayno inaysan midaas ii horseedaynin inaan ka dhabeeyo riyooyinkayga hadaftayda, waxaan go'aan ku gaaray inaan noqdo keligayga, si aan ula saaxiibo kale, saaxiibo aan iga daalaynin, saaxiibo aan wax ka faa'iidayo, saaxiibo waqtigayga qiimo ku daraya. saaxiibadaasna waxay ahaayeen buugaagtayda. buugaagtaydaan la saaxiibay. maalin kasta waxaan samaystay jadwal waqti ii go'an aan wax ku akhrinayo. kadib markaan jaamacadda ka soo noqdo oo aan hurdo xoogaa nasto, galabta intaan soo kaco inaan buugaagtayda dul fadhiisto oo aan akhriyo ka hor casharka aan beri qaadan lahaa, ayaan diyaarinayaa intaan la gaarin ka hor. haddaba adigana sidaas ayaad u baahan tahay. haddii aad aragtid in saaxiibadaada aan kuga caawinaynin hadafkaaga, haddii aad saaxiibada inay ku horseedayaan in waqtiga ay kaa luminayaan, waqti ay kaa dilayaan, oo ay kugu imaanayaan sheekooyin aan loo baahnayn oo aanan ahayn kuwa hadafkaaga u khidmaynaya, waxaad u baahan tahay inaad istaagtid oona go'aan ku qaadatid inaad keligaaga noqotid. markaas waxaad ka dhabaynaysaa ahdaaftaada. tallaabada 5aad, baro inaad dhahdid maya. dadka guusha gaaray, dadka ka dhabeeya ahdaftooda, waxaa ku jira qaamuuskooda nolosha erey lagu magacaabo maya. qofkeena noloshiisa haddii uusan garanaynin sida loo yiraahdo maya, meel ma gaarayo. kama dhabeynaysid riyooyinkaaga, ma gaaraysid ahdaaftaada, wax ma akhrisan kartid, waxbarashadaada guulka ma gaaraysid. sababtoo adiga waxaad diyaar u tahay wax walba inaad dhahdid haa. nolosha sidaasi kuma soconayso. nolosha kuma soconayso inaad wax walba haa dhahdid. waxaad u baahan tahay mararka qaar inaad dhahdid maya. iga raali noqo, ma bixi karo, sababtoo ah cashar ayaa isugaya inaan akhriyo. diyaar uma ihi hadda aan ku lumiyo waqtigayga meelo aan wax faa'iido lahayn. imtixaan ayaa isugaya hadda, waa inaan fadhiistaa. maya, ma baxayo. waa inaad bartaa inaad dhahdid maya haddii aad doonaysid
inaad waqtigaaga xakamaysid, inaad waqtigaaga ka faa'iidaysatid. qofka mar walba haa dhaha waqtigiisa ma xakamayn karo, waqtigiisa kama faa'iidaysanayo. waayo adiga oo wax akrinaya telefoon kuu soo dhacaya, waxaa lagu leeyahay waan ku baahanahay soo bax, hadda waxaan aadaynaa meeshaas ayaan wax kasoo gadanaynaa, ma soo bax. haye waay buugga isku daboolaya baxe, mise waxaad leedahay maya iga raali noqo, ma bixi karo hadda sababtoo ah wax akhris ayaan ku jiraa, imtixaan ayaa ii soo dhow, imtixaan diyaaris ayaan ku jiraa, hadda iga raali noqo, mar kale nooga dhig. soo ma jeedid? waa inaad adiga noloshaada qaraaradeeda go-aanadeeda aad u qaadan kartaa si adag. khudil kitaaba biquwa. nolosha waxay u baahan tahay inaad si xoogan u qabsatid, wax ciyaara ma jiraan. haddaba si aad uga dhabaysid hadaftaada, himilooyinkaaga, waa inaad u qaadataa nolosha si adag, oona bartaa nafsadaada inaad dhahdid mararka qaar maya. tallaabada 6aad, baro goorta istaagaysid. ma jiro qof maanta oo dhan wax akrinaya, qof usbuuca oo dhan wax akrinaya. may waxaad u baahan tahay inaad baratid markaa istaagaysid. nus saac ayaan wax akrinayaa, break ayaan qaadanayaa 10 daqiiqo 5 daqiiqo, haddana waan kusoo noqonayaa. maalin waxaa jirta aan break qaadanaya oo dhan si aan nafsadeedana u siiyo waqtigeeda. soo maahan? si aan nafsadeeda waqti ula qaato, waqti aan ku fikiro, waqti aan kula qaato saaxiibada aan kula sheekeysanayo. macnaheedu ma ahan inaad waqtigaaga ilaalinayso, intaan oo dhan samaynaysid inaad ka go-aysid dadka oo dhan. may waqti ayaad u samaysanaysaa ayagana. waqti waxaa jira istaagaysid, waqti aad la qaadanaysid dadka ku jecel, adigana aad jeceshahay, waqti aad telefoon kula hadlaysid. waqtiyadaas oo dhan waa samaysanaysaa, waa qayb ka mid a noloshaada. balse muhiimaddu waxay tahay in waxaasi aysan noqonin wax iska furan. haddaba baro goorta istaagaysid, baro goorta aad nasanaysid, baro goorta aad hurdaysid. waa inaad hurdaa, nafsadaada way u baahan tahay. waa inaad yeelataa nolol isku dheelitiran. muhiimaddu waa taas, waxaynu doonayno waa midaas. waa inaad noqotaa qof noloshiisa isku dheelitiran tahay. xillina hurda, xilli wax akhriya, xilli la qaata dadka uu jecel yahay, sidaas xilli waxbarashada aada, sidaas inay ahaato noloshaada. soo ma jeedid? haddaba baro goorta istaagaysid. samayso saacad kasta oo wax akhrinaysid dhexdeeda waxaad gelisaa waqtiyo break ah oo aad nasanaysid. sidoo kale maalin u samayso aad maalintaasi ku nasanaysid, oo aad la qaadanaysid oo la baxaysid saaxiibadaada, jawiga aad kusoo bedelanaysid. hataa haddii aan saaxiibadaada la bixin, keligaaga baxaya, kusoo wareegaya magaalada, meelaha dooga ah ee indhaha u roon aad tegaysid, oo aad jawiga kusoo bedelanaysid. markaad sidaas samaysid, midaasi adiga waxaad samaysanaysaa energy kale, dheeraad kale ah, xamaasad kale oo kugu dhiirinaysa inaad buugga hodhow si fiican u akhrisid. jawi bedelkan waxay kugu sii caawinaysaa wax akhriskaaga soo socda. waad u baahan tahay haddaba ogow markaa istaagaysid. haddaba intaan waa 6 tallaabo oo ku damaana qaadaya guushaada. ma ahan oo kaliya guusha waxbarasho, balse guusha noloshaada oo dhan. noloshaada waxay noqonaysaa hadduu alla weyno ogolaado hadda kadib mid isku dheelitiran, mid wax soo saar leh, mid waxtar leh. waxaadna gaari doontaa ood ka dhabayn doontaa ahdaaftaada nolosha. ku dabaq 6 tallaabo aad baratay, kadibna waxaad arki doontaa inaad noqotay qof cusub. ha hilmaamin weligaaga, ku nolow mar walba nolol farxad leh, nolol jacayl leh, nolol qurux badan. tan iyo intaynu kaga kulmi doono muuqaalka soo socda, hadduu alla weyno ogolaado, waxaan ku leeyahay mahadsanid. توكل على الله في كل حين تجد عونه ثابتا قد ظهر. وتقوى الإله سبيل